waxaa maanta la soo gabagabeeyay tartanka kubadda cagta ee fardaha kaab oo ka socday bishii barakeysaneed ee Ramadaan garoonka qaryada ee magaalada Boorama waxaana tartankan taabagelinayay labada musharax ee kala ah Fuad Yuusuf Cismaan oo tartamaya golaha wakiilada iyo waliba sidoo kale Sharmaake Aadan Cismaan oo isagana u sharaxan golaha deegaanka. ugu horeyn xafladii gabagabada tartankani waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudidii gacanta ku haysay tartankaasi iyo sidoo kale musharaxiinta taabagelinaya tartankani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa horta alxamdulillah koobku si fiican inoo dhamaaday qabaqabo fiican oo noo yeeshay koobkuna wuxuu ku socday muddo bila koobkuna waxa lagu qabtay xaafadooda fardaha waxaana qabtay musharaxiinta kala ah Fuad iyo Sharmaake. koobka horta waa koobkii xaafadaha Ramadaan tawala dhigi jiray laakiin doorka wuxuu kaga duwanaa koobkii hore waxa noo maalgeliyay labada musharax Fuad Yuusuf Cismaan iyo oo ka sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Awdal iyo musharax ka sharaxan golaha deegaanka oo ah Sharmaake Aadan Saciid. labada musharax ayaa Ilaahay ka soo kornoo suuro galiyana koobka qabsano aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. koobkuna si fiican buu inoogu soo socday waxaanu ka koobnaa 8 kooxood 8 kooxood oo iskugu jirta heerar kala duwan. koobka waxaan ugu talagalnay integration koobkaas oo isdhexgal dhalinyarta xaafadda ah oo ka kooban ilaa 4 jiil ayuu ka koobnaa koobku. koobkaasina wuxuu socday sida uu habsamid oo wanaagsan buu noogu socday. insha Allah waxaan rajeynaynaa Ramadaanada tan ka dambeeyana in koobku inta in ka wanaagsan noogu socdo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinaynaa musharaxiinta. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qolooyinkii soo agaasimay kuubkan. annagu maxay ahayd qaybta sponsorka u baan lahayne rag baa tabac iyo hawl iyo maxay soo jeed fara badan geliyay aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxa kale oo u mahadnaqaynaa dhalinyartii maxay ahayd sida quruxda badan leh ee wanaaga iyo anshaxa leh maxay u soo bandhigay xirfadooda kubadeed. dhammaantood aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. aniga oo sharaxan maxay ahayd golaha wakiilada Dr. Fuad iyo maxay ahayd Sharmaake oo u sharaxan maxay ahayd golaha deegaanka Boorama. wixii maxay ahayd aad naga codsateen intii karaanka iyaga ah waanu fulinay. insha Allah waxaan rajeynaynaa idinka ciyaartooyadiina iyo maxay ahayd dadweynaha daawanayay kubaddan quruxda badan leh la soo bandhigay in idinkuna hadii Ilaahay yiraahdo maalinta 31 bisha May aad maxay ahayd idinkuna aad maxay ahayd gudataan wixii aynu ku ballanay hadii Ilaahay yiraahdo idinka iyo maxay ahayd xaafadaha dhalinyartu ay ka soo jeedaanba. koobka maanta wuxuu ku yahay dhamaadkii maanta ayuu noqday mid gabagaba ah oo dhamaaday wuxuuna ku ekaa koobka bishan Ramadaan. ujeedadiisuna waxay ahayd integrationka dhalinyarada in ay dhalinyarada isku dhex gasho in uu entertainment u noqdo ama madadaalo u noqdo dhammaan bulshada ku dhaqan eeriyadan. kulli Ilaahay mahadi alxamdulillah wuxuu koobka noogu dhamaaday si nabada si khayr leh iyo si maadaragtay barwaaqo reereen ayuu noogu dhamaaday. anigoo ah musharax golaha deegaanka degmada Boorama Sharmaake Aadan Saciid ah. nambarkayga lagu codeynayno yahay 311 iyo Dr. Fuad oo ah musharax golaha wakiilada ee gobolka Awdal. waxaan u sheegaynaa bulshada ku dhaqan sida aanu u garab taaganahay maanta inaanu mar walba u garab taagnaan doono wada shaqayn dhabana aan la yeelan doono. bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wa bayna sa'in ala umuur dunya wa diin. kulli waxaan u maleynayaa waa kelmadda xiritaanka jeedada laga koobkan waxa ahayd baan filayaa isdhexgalka dhalinyarta iyo in dhalinyartu isbartaan. halka labada musharax ee Dr. Fuad iyo Sharmaake run ahaantii waxa weeye waa dhalinyartana waxay uga baahan yihiin markaas si garab uga baahan yihiin maalinta codeynta. kulli ujeedada guud waxay tahay u maleynayaa dhalinyartu isbartaan lana ogaado markaas labada musharax. waxaan leeyahay insha Allah taala maalinta codeynta iyagana in la ogaado haday iyagu isdhexgalkii iyo isbarashadii dhalinyartii ay ka shaqeeyeen waxaad ogaataan insha Allah maalinta codeynta. gabagabadii xafladda waxaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey xubnihii ugu firfircoonaa intii uu socday tartankani kubadda cagta ee bisha Ramadaan. ugu dambeyn waxaa halkaasi kaabka lagu guddoonsiiyey kooxda dowladda hoose oo ku guuleysatay kaabka fardaha kaab ee bisha barakeysan ee Ramadaan.